keensaday على غير حس على غير أدينك كeensaday taabidna adinka keensaday u daayay shaqada marka qof walba shaqo kale leeyahay shaqada u daayay qof wuxuu weydiiyay farmaajo adiga ka soo horjeeday maxaa hadda maxuu ka hadlay taasaan rabaa inaan uga jawaabo farmaajo waa ka soo horjeeday farmaajo waxa uga soo horjeeday hadal uu asaga yiri ayaan uga soo horjeeday hadalkii uu yiri inuu ka jawaabo waa kaas aadan cabdulle cismaan filada soo suro runta ka hadlay hadalkii qaladkii uu ku hadlay waa ka soo jawaabiyo yiri aadan cabdulle cismaan wuxuu ahaa madaxweynihii halkii kaliya Soomaaliya nabad wadanka ku dhixmaray madaxweyne kalena ku muusan dhajin soo qaladkiisu uu ka soo noqday uu ogaaday waxaan ku haysto kale ma jirto wuxuu ii dhimo kale ma jirto qofka marka hadaa uu aniga siyaasiyiin ay dhalay hadaa siyaasiyiin dhalayna waana ku soo dhex koray marka haddaan arko qof qaldan oo siyaasi ah waa u sheegaa qaladkiisa wax kale oo dhibaato ah oo igu sameeyay farmaajo male qaladkiisa hadduu ka soo noqdayna calooshiisa asaga og iyo wuxuu qabo dhibaato aabahayna ma dilin hooyadayna ma dilin wax kale ii geystayna male raalli waana qanciye annaga cala ay hal aniga waa qanciye because maadaama uu yiri aadan caddo wuxuu ninkii budda dhigay xornimada ama nabadda waa ku qancaa intaas shalay asaa yiri jaajuus ahaa maantana asaa yiri asaan rabaa inuu ku dayasho leh marka intaas ay ugu filan aniga intaas uu geystay intuu geystay uu ka soo noqdaa rabbi uun baan qaldamin qof walba qaldama bini aadananahay qolaad kale aan farmaajo u qabay ma jirto waxaan ka hadli lahaa kaliya maantay shaqada uu taabid qabtay oo meel walba la dhiiga la daadinaa hebela la siiyay majeerteena la siiyay biimaala la siiyay hebela la siiyay xaqay u leeyihiin wadankay kula degan yihiin wadankay leeyihiin magaalo madax waaye ha loo dhaafo wax no different waa la isla deganaan jiray waana la isla deganaanaa markii vote 4.5 adinka keensaday adinka raalli ka ahaa waa ku salaamay imbo my brother marka waxa loo baahan yahay in la taageero dhalinyarada in la taageero waaye taabidiyaan la googoosanin ilmaha wax bartay odayaashan iyo dadkan iska soo nacnaclayna dad xamar joogan la hadlay odayaashanaytu waa inay ka haraan ilmaha yararka awalba dibadaha markii la tago waalidkeen dibadaha noo diri jireen waxbaan soo baran jiray wadankeena uga faa'iideyn jirnay taabid dibaddu wax ku soo bartay wadankiisa uga faa'iideeyay qurba joogta u wada dhiibay aad dhahdeen magaalada yes qurba joogtada waxay idin barayaan wixii ay ka soo barteen dibadda iyo xaqii laakiin haddii lagu jiro maanta dhan ha la islu qaabto no ra'iisul wasaaraha kadalik shaqo fiican uu haayaa shaqadu haay u daaya ha eedaynina let's see 1 year waxay qabtaan waayigaas shaqeynaa waayigaas dadaalayo waayigaas horumarka raadinayo ka daayda caayda ka daaya niyad jabka ha la isu duceeyo kuwii kor noo qaada allah ka dhig wiilasha dhalinyarada kuwii naloo ku dhiibay xamar gudoomiyaasha naloo ka dhigana oo dibadaha ka yimidna waxaan rajaynayaa inay baraan aqoonta iyo xaqa iyo sida gaaladan u dhaqmaan oo kaleeto qof inuusan xaqiri karin qof inuusan dhici karin waxa aqoonta ay dibadda ka soo saacideen inay ilmaheena noo baraan waxa la yiri ilmihii haddii qurba joogto dibadaha ilmaha laga keeno la baro ilmihii waxay u cararayaan banaanka si ay wax ugu soo bartaan ma asaas khalad yaan la fahansiin ilmaha xamar joogo xamaray wax ku barteen kuwan dibadda wax ku soo barteen waxay la kulmeen ilmaha xamar joogo dad aan ahayn xaqaani oo wadan la istaba marinayo wax marka ilmahan kale oo annaga ilmaheena kale dibadda ku soo bar oon aqoonin qabiil oon aqoonin xumaan oon aqoonin wax la xado waa inay ilmaha kala baraan saasuu taabid u keenay to teach them ilmaha wadanka ku dhashay ilaa waa ilmo dagaal iyo rabsho iyo cuqdo ku soo koray waa inay baraan ilmaha dibadaha ku soo koray oo wax soo bartay xaqa sijidka la maro see kaloo la yeela haddii laakiin cunug ku soo koro boob iyo dhac haddana loo sii dhiibo boobkii dhiciyaa sii soconaa marka taabid ka leexda xasan cali khayre ka leexda waa niman dhalinyar dowladday ku cusub yihiin waa ordayaan saan u jeeda waa dadaalayaan horumarka faataxada ugu mara cayda iyo andacada iyo xumaanta ka joojiya especially taabid wax khalada uu sameeyay ma jiro wax xumaan uu sameeyay ma jiro I don't know dada dhahoyo salaad gabayre iyo waxbay ka sheekeynaan salaad gabayre ma afinin wixii dilay nimankii dilay wali banaankay joogaan dafla kamida
waxaa ka mid ah boqolaalaa joogto geella maqiiqa ka mid ah ha ka yaabin nimankaas maxkamadaa la keenaya nimankaas ayadoon maxkamad la keenin kama haraayo hana u malaynin inaan kaaray laakiin waxaan diidanahay ilmaha yaryar dadka dhallinyarada ah oo dibadaha wax ku soo bartay oo hadda la bedelay oo wax la siinaayo yaan la niyad jebinin let them work salaad gabeer wixii dilayna maxkamad one day waana lala xisaabtamaa waana laga gooynaa intii nool intii dhimato waaba dhimato kara gaar male say u dhinteenna foolxumada waa la ogyahay iyo xumaantay ku dhinteen ninkii qabiil ugu hiilina isagay jirtaa laakiin taas anoo muuna salaad gabeeraha mana cafinaayo intay nool yihiin xaqdarrada lagu dilay in la soo saaro waayo farmaajo soo saariya ku kala soo saariya annaga waa u taaganaha xaqeennii gardarradii salaad gabeer lagu dilay siyaad barrana in lagu dhaqa xamar siyaasaddiisa taas aniga ma rabo mana ka welwalaayo mana ku raacsane mana ka arkin ilaa iyo hadda mana raba inaan masabido I didn't see siyaad barre siyaasaddiisa mana lagu dhaqi karo because he was a dictator laakiin hadda waxaa u jeedaa wiilal dadaalayo waddankooda ka shaqaynaayo nadiifinaayo ordaayo dadkii oo isku dhex qasan ha la isku dhex qasmo sidii la ahaan jira ha la noqdo ha la wanaag garaagado laakiin yaan la isaga dhigin taako aabbaha ayaa la dilay iyo hooyada ayaa la dilay wixii dilay waa naqaanaa saan ula xisaabtanno waana naqaanaa saan uga samaysano dawlad kastoo timaado aan kula xaaltamayna haddaan ku aragna xamar dhexdeeda wir dafle xamar ha yimaado aniga waa imaana waaba soo socdaa waa ballan inaan maxkamad la koro geella maqiiq waa ballan inaan maxkamad la koro laakiin aniga farmaajo wax ma iga been aadan cabdu wax ka sheegay maantayna wanaaguu sheegay nothing else uu iga baashi male ilaahay keliya maqaldama ah marka waxaa waaye aniga waxaan idin leeyahay inaad dhaaftaan dhallinyarada xasan cali khayre iyo taabid horumarka ay wadaan u dhaafa ha socdaan haddii kale sida aabbahay lugahayaan la qabanin oon hadhow ayagana god la gelin intaasaa idin dhihi lahaa marka wiilashaas waa saxsan yihiin daacaday u shaqaynayaan daacadayna waxooda u wataan daacadayna u rabaan waddankoodii ilmahooda inay u horumariyaan oga baxa faataxada umar u duceey waa maalin soone ilaahayna caloosha noo nadiifiyo aniga I don't care haddaa i cafisid iyo haddaad ii cafidinin tii rabbiyaa kuu taalla waa wada fasiray farmaajo maxaa ku nacday jawaabteeda waa ku siiyey siyaad barre ma jecli mana jeclaan kari iyo wixii la shaqaynayaba waxay ahaayeen hawii daar I don't care waxay ahaayeen gardaradii lagu dilay cabdiqaadir leel caynaashi siyaad barre weli waa ku dheganahay iyo caynaashi cabdiqaadir leel iyo aabbahay marka waxaa waaye taas meelay taallaa waa laga soo tegey hadda hore aan uga sii soconno xisaabtooda taas mid laga haraa maaha intaan noolnahay laakiin hadda dadkan waddanka quruxuu iila muuqdaa wiilal taagan subax iyo habeen dadka ku dhex jiro shaqaynayaan ujeedaa waa la dooranaa majeerteena la dooranaa biimaala la dooranaa abgaala la dooranaa abargidira la dooranaa xamar waa laysla leeyahay taas magaalo madaxdii waaye waa u ogolahay aniga taas uma diidani taas marka walaalayaal rabsida naga dhaafa let's come back wanaag iyo samaan iyo qurux ana intaasaa idin dhihi lahaa dadka hunnuda wada ama dhaho muuna saanay tiri ama muuna kanay tiri muuna waxba ma dhihin daarood waa dhaleen hawiyana waa dhaleen labadaba waa jeceshahay ma fahantay marka waxaa waaye khalad ha fahmina hawiyana gardarro uguma horkacay daaroodna gardarro uguma horkacay because I grew up a family who are politician that's where I come from taasaana ku soconaa xaqaana ku soconaa labadana waa dhiigaygii mana ogoli in qalad laga galo midkoodna waa kaas wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ramadaan wanaagsan farxad khayr rajo fiican next year soonkan soonkiisa ilaahay waxaan ka rajaynaa soomaali afarteeda adduunka meesha ka joogo dacaladeeda annagoo cirka marayno horumar fiican gaarnay ilmo badan wax soo bartaa noo soo socdo kuwa kalena waa noo soo socon doonaan kuweena xamar joogan wax waa heli doonaan wax naga maqan male aan iskaashano let's be one together intaasaa idin dhiila naga dhaafa buuqa naga dhaafa xinka naga dhaafa ayda walaalayaalo yaan lugaha lagu dhegin wiil yar kasta oo soo baxo yaan lugaha lagu dhegin dhaafa khayre dhaafa taabid dhaafa qof walba oo hore u soconaayo ilaa iyo hadda ani xumaan ma arko waa kaasa qof aan dembi u haystan male tii aabahayna xisaabteedii anay ii taallaa insha allah biidni illaahi kariim waxaa waaye annaga aan iscafino
wixii aabbahay dilayna ayaga meel isuula yaallaan ayagaa taas ka jawaabi doono soomaali waa wan ha xorowdo walaala noqda hore anyway faataxada aan marano walaalayaalow aan iscafina soonkan soonkiisa khayr guul soomaaloo horumartay dad isjecel nacaybka badan aan iska dhaafno waa kaasaa intaasaa idin leeyahay intaasaan u soo gala caawo waa idin cafiyey intii inacabow wahdaarad hay cafin haddaartii cafi laakiin ana cafisaa idin weydiistay wax idinkama gelin laakiin istiil cuqdadaa iska jiri karta iyo hadalladayda inaad si qalad u qaadan kartaan ooldow aana aniga marnaba qaldamin waa idinku soo celina marnaba ma qaldamin laakiin haddaa qalad u qaadateen cafiye masaabaxta anigaba boqolaa qalad iga gashay waana cafiye qofaan dembi u haysta male guul taabid guul khayre guul dowladda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu باي